maxay guushu? Guushu ma laha sir, balse waxaa jira tilmaamooyin iyo waddooyin loo raaco guusha. Arrinkaas oo aad raacaysid marka aad rabtid inaad ka gungaadid hadafkaaga. Haddaba, waxaan idiin soo gudbinayaa tilmaamaha lagu gaari karo guusha. Qodobka ugu horreeya: inaad ka faa'iidaysatid waqtiyadaada, ugana faa'iidaysatid waxyaabaha adiga ku anfacaya adduun iyo aakhiro. Qodobka labaad: inaad ka fogaatid mar kasta waxyaabaha kuu keenaya niyad jabka, taasi oo aas u ah inay kaa fashiliso waddadii guusha. Qodobka saddexaad: samir iyo dulqaad. Dhammaan qof kasta oo nolosha horumar ka gaaray kumuusan gaarin saacado, maalin iyo habeen toone. Waxaa loo baahan yahay samir iyo dulqaad si aad u noqotid qof guuleysta. Qodobka afaraad: go'aan iyo xoog saarid. Ma jiro qof meel gaaray oo aan dadka fikirkiisa ku qancinin. Waxaa loo baahan yahay waxa aad qabanaysid inay noqdaan wax ay kaa go'an tahay, sidoo kalena aad xoogga saartid waxa aad qabanaysid. Qodobka shanaad: haddaba adun ha is xaqirin inta aanay dadka kale ku xaqirin. Isku kalsoonow oo niyadaada wanaaji, Ilaahayna tala saaro mar kasta. Qodobka lixaad: ha u ogolaanin dadka kale inay hoos kuu dhigaan. Waxaa hubaal ah in aad soo martay noloshaada guuldarrooyin fara badan. Si kastaba ha ahaatee, ha u ogolaanin dadka kale inay ku niyad jebiyaan ama ay kugu tilmaamaan inaad tahay qof aanan wax qabsan karin. Ma jiro qof wada wanaagsan, qof waliba khalad waa uu sameeyaa. Haddaba ku dhiirigeli naftaada inaad tahay qof wax qabsan kara oona guuleysan kara. Qodobka toddobaad: isku kalsoonow oo niyadaada wanaaji, Ilaahayna tala saaro mar kasta. Haddaba qodobadaas aan kor ku soo xusnay waxa ay ka mid yihiin qaar ka mid ah waxyaabaha lagu gaari karo guusha. Fiidiyogani hadduu ku caawiyay like saar, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.